السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أخيارتا قيمها لأد بانو سلامية ميل كستو أد كلا جوجتان دافاها دونيدا ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bashaareynaa inaan u hayno Aloe Bright Tooth Gel waa Colgate ama macajuuntii ilkaha qofka siduu u yaqaano oo laga sameeyay geedka dacarta loo yaqaano dacarta runtii dacartu aad bay waxtar badan ugu leedahay ilkaheena iyo waliba maqaarkeena sare oogada sare jidhkeenaba marka maasha Allah waxaynu helay iyadoo Colgate laynooga soo sameeyay oo ay inoo diyaarisay shirkadeena Forever Living Company ha laga faa'iideysto Colgate dacartii maxay qabataa maxay sadheertay Colgate-yada kale wadanka yaala waxay dheer tahay kow horta wax chemical kuma jiraan wax chemical oo adiga wax ku yeelaya kuma jiraan Colgate-deena kulayl badan male ama kulayl badan oo saayida oo qofkii dabnaha iyo ciridka wax yeeli kara kuma jiraan sidoo kale Colgate-deena waxay aad ugu wanaagsan tahay maadaama caruurta iyo ciroolaha labaduba way isticmaali karaan qof weyn iyo qof yar uu ka faa'iideysan karaa waxaana looga faa'iideysan karaa sidii dabiiciga ahayd ee awalba qofku u cadeyn jiray saddexdii waqti ayuunba qofkana isticmaalaya masha Allah waxtar badan bay markaa u leedahay ilkaheena maxaa kamid ah waxtarka ay u leedahay waxa kamid ah inay ku ilaaliso oo ilkiha ay ka ilaaliso wax bakteeriyada soo weerarta sida infections kala duwan oo kugu dhasha infections kala duwan waxay keenaan marka dambe ilkii inuu burburo sidoo kale inuu ma garanaysaa isuus badan galo sidoo kale inay ilkii jilcaan oo dabcaan sidoo kale inuu ciridku durko wixii oo dhan bay xalisaa hadduu qofku joogteeyo oo la macaamilo Aloe Bright Colgate Aloe Bright Tooth Gel waxaan ogahay inuu qofkaasi ka caafimaad qab badan yahay qofka kale Colgate-yada kala ku cadeeda marka maasha Allah inagoo ka faa'iideysanana Aloe Bright Tooth Gel waxaynu isticmaali doonaa saddex waqti subaxdii duhurkii iyo habeenkii haddii uusan qofku duhurkii haleelina labada waqti ee kale buu isticmaali karaa marka maasha Allah caruurtu hadii jeer macmacaanka aad u badsataa kol hadii ilmaha yar macmacaan badan uu cunayana waxaynu ognahay ilkiisa inuu halis ugu jiraan inay bakteeriya badan ku dhalato kadibna qofkaasi suus qaado isagoo aad u daayar qofka ilkiiba iska bururaano ilkihiisiiba ay noqdaan ilko aan macna badan sameynayno cuntaba aan ku cuni karin si taa looga hortago waxaynu u baahanay subax walba hooyadu inay ugu cadaydo ubadkeedii iyaduna ay ku cadayato xaajigii odaygii reerka lahaana sidoo kale uu ka faa'iideysto oo ku cadaydo miis wal oo ma garanaysaa guri wal oo maanta ku yaala dhulka Soomaaliyeedna aad ba looga baahan yahay Colgate-dan marka waa inay miis wal iyo cupboard wal oo gurigaaga inay saarantay Colgate waa laga maarmaan waayo waa quruxdii waa dhoola cadayntaadii iyo waliba kalsoonidii naftaada waayo haday ilkaagu qurux badan yihiin waxay qayb ka yihiin kalsoonida nafeed ee aad isku qabto sida darteed dhiiga ku xalli dhiiga way xalisaa infectionska ku dhacay ilkaha oo dhan way xalisaa sidoo kale ilkaha durka way joojisaa oo durkitaanka ciridkii joojisaa oo ay soo koobtaa sidoo kale waxay u fiican tahay inay bakteeriyada disho oo dadka hadii jeer ilkaha laga saarayo ama hadii jeer dadka ilkaha xidhay birta ku xidhan aad bay ugu baahan yihiin inay ku cadeydaan marka waa Colgate International oo adduunka oo dhan laga isticmaalo sidoo kale dabiiciya sidoo kale waxyeelo aan lahayn waxtar mooyaane marka aynu ka faa'iideysano saddex waqti waa lagu cadeydaa waxay ka kooban tahay dacar iyo dhirtii kale muhiimka u ahayd ilkaha oo dhan baa ku jirta fitamiinadii iyo mineralski macdanihii ilkaha ugu baahnaayeen ee calcium-tuna ku jirtay baa runtii ku jira marka aynu ka faa'iideysano aad iyo aad waana qiimo macquula oo aan qofka eriyeyn maasha Allah laga faa'iideysto Aloe Bright Tooth Gel Colgate meel kasto lagu arko ha laga faa'iideysto insha Allah